Ikraan waxay bishii Agost ee sanadkii 1996 ku dhalatay magaalada Muqdisho. Waxay ka mid tahay dhalinyarada dibadda wax ku soo bartay kadibna dalka dib ugu soo laabtay. Waxayna khibrad in muddo ah u lahayd shaqooyinka xafiisyada dawladda iyo laamaha amniga. Gabadhani ayaa in ka badan 5 sano ka hor ku biirtay hay'adda Nabad sugidda ama sirdoonka Qaranka Soomaaliya ee NISA, iyadoo ahayd madaxii amniga internetka ee hay'adaasi. Markii ugu horeysay ee ay NISA ku biirtay waxay ahayd sanadkii 2017 sida uu warbaahinta u sheegay taliyihii hore ee sirdoonka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe. Kadib waxay ka shaqo bilowday xafiiskii gudoomiyihii gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho oo ay agaasimo ka ahayd. Xoogaa kadib Soomaaliya ayay ka baxday Ikraan inkastoo ay mar kale dib ugu laabatay. Hooyadeed waxay sheegtay in markii ay baxday ay aqoon kororsi u aaday dalka Ingiriiska. Inta badan wararka la isla dhexmarayo waxay sheegayaan in Ikraan la afduubtay inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn cidda afduubatay marka laga soo tago eedeymaha. Gabadhan hooyadeed Qaali Maxamuud Guhaad ayaa sheegtay in gabadheeda iyadoo joogto guri u dhow xarunta Nabad sugidda la soo wacay kadibna gaari lagu kaxeeyay. Guriga ay ku sugnayd wuxuu ku yaalay agagaarka xarunta Nabad sugidda oo ah goob amnigeeda si weyn loo ilaaliyo. Qaali Maxamuud oo wadanka Turkiga uga timi si ay gabadheeda u raadiso ayaa shir jaraa'id warbaahinta ugu qabatay magaalada Muqdisho, waxayna dawladda ka codsatay in laga caawiyo sidii ay gabadheeda dib ugu heli lahayd. Waxaan codsanayaa gabadheedii meel alla meeshay ku jirto dawladda inay iiga soo bixiso. Gabadheedii xaqdaraa lagu watay, gabadheedii xaqdaraa lagu haystaa. Gabadheedii biliis gabadheedii waxa leega qabto. Madaxweynaha uu eedo imaqlaayo waxa ka qabto. Ra'iisul Wasaare Roble waxa ka qabto. Ha ka qabto maxaan ku dhahay wasiirka oo cadaaladda, maxkamadda, garsoorka. Gabadheeda gabar la aqoon waaye ma aha. Gabadheeda waxay ka shaqeynaysay xafiiskii injineer Yariisow. Gabadheeda waa gabar la yaqaan oo caan ahayd. Gabadhii waxbarasho iyo aqoon kororsi waxay u aaday dalka Ingiriiska. Markay soo laabatana waa kana dhibkaana lagu sameeyay oo gabadheedii meel lagu qabirtay. Saaka waxaan tagay maxkamadda ciidamada. Waxaan geystay documents-keygii oo maxaan ku raadayay gabadheeda dhibkeeda aan ku sheegay oo uga hadlaay. Way iga qaabileen. Marka aniga wax in lay qabtaan rabo gabadheeda sida ugu dhaqso badan meeshii ku jirta laga soo bixi. Gabadheeda meel dheer ma jirto, ma dhoofin baasaboorradeedii anaa haayo. Wadankaanay ku dhex jirtaa magaalada Muqdisho meel laga galiyay. Halii soo bixi gabadheeda dawladnimo haday jirto. Ikraan hooyadeed ayaa shaaca ka qaaday in ay jiraan dad ay ku tuhunsan yihiin gabadheeda inkastoo aysan si cad u sheegin magaca cidda ay gabadha ku malaynayaan. Waxay intaasi ku dartay in la garanayo gaarigii lagu qaaday Ikraan markii ugu dambeysay ee ay ka baxday guriga. Waxay maqan tahay 16 bari maalinkii Sabtida oo 26 bisha ay ahayd June 2 saac habeenimo 2 saac iyo 3 daqiiqo gabadhii baxday oo iyadoo laptopkeeda wadata guriga ka baxday. Gabadhii ayada iskama bixin kolba dantay u baxday qofkii ay isku aaminto qof ay taqaan u ahaa oo qaaday. Gabadheedu waa gabar yar oo wax barato wadankan inay shaqo ka qabsato u timiday. Gabadheedu nimankaas iga haysto iga wateen baabuur la yaqaan oo maxaan ku dhahay loo jeedo anaka kaamira hadda aan xogta hayno ba gabadhiyo raacaysan hayna. Baabuurku wuxuu ka soo galay kilometer 0 iyo Global Hotel dhexdooda meeshan deganah gabadha degantahay. Intaas dhexdeeda baabuur soo galay waa baabuur amni ah. Waa baabuur la yaqaan, waa baabuur gacanka uu soo daayay. Dhanka kale dawladda Soomaaliya ayaa maanta magacawday guddi loo xilsaaray inay soo baaraan kiiska Ikraan tahliil oo ka tirsaneyd hay'adda Nabad sugidda Qaranka Soomaaliya ee NISA, taasoo la waayay muddo hal bil ka hor. Guddigan ayaa ka kooban 3 sarkaal oo ka kala socota xafiiska xeer ilaalinta, booliiska iyo Nabad sugidda. Xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya ayaa amar ku bixiyay in taliska NISA ay kala shaqeeyaan saraakiisha magacaaban wada kasta oo lagu gaari karo danta cadaaladda.
xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa aqbalay furashada galdacwadeed ay u soo gudbisteen ehelka maqanaad Ikraan Tahliil ayaa lagu yiri war ka soo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha. dhanka kale xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo la hadlay warbaahinta ayaa u mahadceliyay amar ka soo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya isagoo waliba ka dhawaajiyay inay ku kalsoonaani doonaan natiijada ka soo bixi doonto baaritaankaasi. waxaan soo dhaweynayaa garsoorka ciidamada qaranka Soomaaliyeed ama garsoorka ciidamada qalabka sida galdacweedka gabadha uu ka furaa maadaama gabadha ay hay'adaha amniga hay'ad kamid ay ka shaqeynayso arinteedana muxuu ahaa galdacweedkeeda iska furaa maxkamadda ciidamada maanta waxay soo saareen guddi xeer ilaalin ah oo arintaas baaray aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa garsoorka ciidamada qalabka sidana sharaf iyo hambalyan u diraya xaqiiqatan shaqada fiican ee ay qabteen waxaan rajaynayaa in baaritaankaas wixii ka soo baxo cid walba ay ku kalsoonaato anagu haddaan nahay famiilkii gabadha ama xildhibaankii gabadha haddaan nahay waa ku kalsoonahay wixii baaritaanka ka soo baxo. xog rasmi ah lagama hayo halka ay ku maqan tahay gabadhan iyo waxa ay ku sugan tahay nolol iyo geeritoona waxayna odayaasha beesheeda ay dowladda Soomaaliya ugu baaqeen inay meel ku sheegaan isla markaana cadaalad la siiyo.